cabdirashiid weli waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijka nasashada horsocod mid ka mid ah saaxiibadeena ku xiran barnaamijkan ayaa wuxuu noo soo diray sheeko aada nooga qoslisay marka waxaan rabnaa sheekadan inaan la wadaagno saaxiibadeena saaxiibkan waxaa lagu magacaabaa xasan cali wuxuu joogaa waddanka Germany sheekada uu noo soo diray waxa uu leeyahay oday weyn oo ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed oo aan haysan wax dhaqaale ah ayaa wiil uu adeer u yahay oo ah agoon waxa uu geeyay dugsi quraan marka waa taqaanaayo dugsi quraanka waagii la yaraa waxa la iska qaadi jiray lacag xoogaay oo la yiraahdo xaqul fariisintii looran jiray ardayga habixi arbaco iyo xaqul fariisin iyo qalin Soomaaliga xaqul qalin marka odagii macalinka wuxuu weydiiyay adeer waxaad keentaa lacagtii xaqul fariisinta marka wiilkii adeerkiis ayaa wuxuu yiri adeer waxa ma haynaa istaagaba ugu dhig haba fariisinba waa sheeko aad u qosol badan aad iyo aad u mahadsan tahay xasan cali oo jooga waddanka Germany mid ka mid ah saaxiibadeena oo lagu magacaabo Saciid balse aan noo sheegin meesha uu joogo ayaa wuxuu sidoo kale noo soo diray gabay runtii aad oo ku soo beegay xilli ku habboonayd gabaygaani wuxuu qoraagu kula dardaarmayaa Soomaalida wuxuuna tusinayaa qof walaalkii ka dhaqaaqi la inuusan horumar gaari karin gabaygan wuxuu leeyahay wixii gardaduub haddii loo xiro gaarna laga haayo gacantii nin lihi goynaya waa gumudan tahay sababtoo ah waxa weeye si walba loo ilaaliyo qof gacantiisa goynaya qof gacantiisa lagama ilaalin karo marka wuxuu leeyahay gacantii nin lihi goynaya waa gumudan tahay nin walaalkii geed ugu jira geesi noqon waayo marka nin walaalkiis dilayo geesi noqon waayo gabaygan qoraagu wuxuu leeyahay waxaan uga hadlayaa xaaladda Soomaaliya oo ah Soomaalidu ilaa ayaga ishaya ay heshiinayaan inaysan horumar fiican aysan gaarin oo ayagu ilaa ay iskarab qabtaan aysan horumar sameeyeen dhanka kalena wuxuu leeyahay waxa laga faa'iidi karaa hoggaanka dadka loo dhiibay haddii aan lala shaqayn ay noqonayaan nin walaalkii uu ku dhagan yahay inuusan horumar sameeyeen aad bay u mahadsan yihiin labadaasi walaal oo noo soo diray sheekooyinka waxa kaloo jirta sheekooyin badan oo maaragtay naloo soo diray balse intaanaan sheekooyinkaasi aanan u gudbin waxa jirta xikmado badan oo adigu aad noo haysin walaalkay horta aad baan ugu mahadcelinayaa tawfiiq shire haddii aan idin xasuusiyo barnaamijkan iyo barnaamijyo fara badan oo kala duwan ayaad ku arki doontaan kuna aragtaan horena ugu arki jirteen page-ka iyo YouTube-ka iyo website-ka Horsocod website waxyaalo fara badan oo kala duwan iyo page soo gudbiya weeyaan waxyaalo dhaqanka la xiriira waxyaalo la xiriira horumarinta shakhsiyaadka qofka bini'aadanka ku habboon waxyaalo la xiriira arrimaha hadda waddanka ka jira sida barnaamijkan Dallis ama barnaamijkan ku aadan waddankaagii maxaad ku caawin kartaa waddankaagii maxaad ku dari kartaa sida Dallis ama talada waddanka ku aadan hadda doorashooyinkan dambe oo ka dhacay isbedelkan inta kadib haddii aan kaftamo inkastoo aan ka baqayo dadka Soomaalida hadhow taynay si kale u fahmaan ninka horeeto odayga ahaa oo yidhi istaagaba ugu dhig reemudug buu ahaa walaal waa laga yaabaa ninkaasi inuu reemudug ahaa balse haddaynu sheekada ka tixraacno qoraagu nooma soo dirin magaalo hebel ayuu ahaa balse inta badan kaftanku mudug ayuu aad maaragtay u qabtaa reemudug iyo reebuucaha aad baa maaragtay lagu soo hadal qabsada laba point baan jeclaa mal waxaa la sheeko yar inaan ku darsado haddii aan khaldanayn sheeko aan jeclahay waxa weeye sheekadii ninkii iyo ganacsigiisii sheekada labaad oo kale aan jeclahay inaan ku darana waxa weeyaan hadafku qofku u leeyahay iyo hadduu doono inuu ka rumeeyo inuu guntiga dhiisha ka dhigto meel la dhihi jiro inuu guntiga dhiisha isaga xiro exactly sheekada hore ganacsiga waxay ku saabsan tahay amaanin iyo ganacsi u lahaa shakhsiyadda qofka bini'aadanka waxaa qolyahan afka qalaad lagu dhaho self confidence-ga
inuu qofku naftiisa aamino. exactly gaarigu qalfoofta waxa ka xoog badan motorka jiinka motorkiisa awoodiisa ayay waxay ku xiran tahay tayadiisa which means qofka bini'aadanka physicalkiisa waa muhiim laakiin meesha wax ka socda meesha wax iska bedela meesha qalbiga iyo rabitaanka qofka. exactly waxa soo tiri waxa dhacday in baa wuxuu bangi ka deysay lacag markuu bangi lacag ka deysay wuxuu sameeyay maalgashi ku sameeyay sida aad la socotaan marka bangi lacag ka qaadatay muddo lacag lagu soo celiyaa waxna waa kula socdaan haddii ganacsiga socon waayana hantidaadii Allah baa la qaataa inta badan oo marka hore laga siixay sax ninkii markii waqtiga soo dhawaaday ayuu wuxuu dareemay inuu waxba gacanta ku haynin isagoo fakarayo oo mashquulsan oo meel madaxa gacmaha saa ugu haya ayaa nin ku soo baxay malaha nin kulmada markii hore uu ku dhawaa oo hadalkiisa isla sheekaysigiisu maqlayay sheekada ujeedka ka dambaysa dib baan ka sharxi doonaa wuxuu ku yiri waan ku maqlay waan ku dhageysanay problem baa ku haysta waxaan ka dareemay khaldan ninkii wuxuu ka dhacay waxa haysta cilada haysta nin dhibaatadii jirtay oo dhan ayuu u sheegay soo koobiya kadibna wuxuu ku yiri tujeebkiisa gacanta gashay oo ula soo baxay dad garan kartaan halkan jeega la dhaho inta badan dadka hantilayaasha jeeg way wataan ayuu wuxuu ugu qoray lacag 5 milyan lacagtaas problemkaagii wuxuu ku haysto financialka ahaa ku xad mudaha tan ka bacdina ii soo celin lacagtii okay wayaan buu ninkii markuu ninkii helay lacagtii ama waxa loo raasa maalka ayuu maskaxdiisa furfurmatay waxyaalo badan baa galay wuxuu isii dhiilal badan ama arrimo badan ama caqabado badan ku hortaagnaa ayaad maanta ka xilbeeli kartaa waa meesha Soomaalida ay ka tiraahdo waxaas u dabada ugu mid isku halayn baa jirta waxbayaan hadalkeeda ku daalina ninkii ganacsigiisa uu ku dhaxshay oo markii hore waxyaalo caqabado lacag laan ay haysay uga xirnaa ayuu ka shaqaysiiyay isagoo kalsoonida lacagtii u taalay oo aaminsan yahay macna intaas aad haysato xitaa caqabado timaad ku dabooli kartaa ay tahay wax ku dhaqaajiyay ganacsigiisii baa u hirgalay hawshii baa u socotay baahidii uu qabay markaas lacagtii waxa uu ka fargaray isla ganacsigiisii wax lagu lahaa iska celiyay muddadii markii la gaaray ayaa ninkii waa nin macnaha balan yaxdi galay meeshii ku soo laabtay isagoo checklist dib u wada oo ninkii uu siiyay raba una mahad celiya ninkii isku soo baxay nasiib wanaag kii markay is heleen isagoo ninkii wada hadlayana hadalka aysan dhamaysanin baa gabar ordaysa ku tahay gacanta ama garabka ka qabatay ninka waxa ku tiraa la ahaa ninkaan meeshan dadka xanuunsan ku jiraan oo yeelka aad ku jiraa uu iska soo baxaa wuxuuna sheegtaa in caana oo hantiila oo markii hore jeeg ugu qoray magaciisa iyo wixiisa inuu yahay jeeg faal ama waxba ka jirin dadka waa u qoray milyan dollar ugu qoray wax la mid ah ninka waa yaabay wixii uu fiirshay wixii inta raasmaalka oo hay u yaal ku fakaraya wuxuu ogaaday inay yihiin waxba ka jirin ujeedka iyo hadafka waxa sheekadu intaas ma ahan ujeedka iyo hadafka sheekadu waxa ay tahay shalay ganacsigiisa inuu buriyo ka fakarayay maalintii ka dambeysay ganacsigiisa oo horumar gaarsiiyay waxa ay tahay laba qof ma noqonin dib uma dhalan uma dhimanin waqti kama soo wareegin xigmada oo kooban waxa weeyaan sida aadna u fasirin kartid dad fara badan u fahmi karaan waa shakhsiyadaada waxa wax bedela waa maskaxdaada hadda cajalad mid wax ku akhriso waa aaminaada iyo qofka bini'aadamka ah wax uu aamino sida uu fahmo si fiican waxaad iska aaminid haddii aad iska aaminsan tahay marka leysi adiga daawanaya iska aaminsan tahay inaan faqiir tahay aad iska aaminsan tahay inaan waxba samayn karinin ma waad samayn kartaa 9 bilood baad ku dhalatay 24 saac baa ilaahay ku siiyay cidna cid adduunka kama wanaagsan waxa la isku dhaafay waa maxay waqtiga sida u isticmaashid hadafka aad leedahay sida aad jeceshahay oo hor sheegtay waxaad ogaataa oo la socotaa markaan hadalka iri oo shaqada ma ka fahmi doontaa qofkaas hadaf baa ka dhex buuxay maanta waa jecel lahaa diyaarada khaasa waxyaalo fara badan riyooyin fara badan waa jiraan laakiin riyo iyo rajo ku noolaansho waxba ma bedelaan meesha aan shaqada aan uga soo diro oo aan rabanaan meesha Soomaalidu ka tiraahdo dafay ku away dibsheedan Allah oo micnaheedu ay tahay wax kasta oo rajo wax kasta oo rabitaanaba dib baa loo maraa